khayr Allah idisiyo maantay waa mar kale iyo dardaarankii ahaa goboladu maanta waad ogtihiin cudurkii waa faafahaya goboladii buu aad u dhaxgalaya hadda maanta waxaa lagu kala garan doonaa maamulada siday u kala diyaarsan yihiin sida ay dhimashadu ugu yaraato ciddii diyaarsanayd maanta waxay noqon doontaa cid ku guuleysata inay ummadeeda iyo shacabkeeda ay badbaadiso ciddii aan diyaarsanayna waxaa soo bixi doonta maanta inay dadkooda aysan ka warheen waxaase rajaynayaa maadaama cudurka uu bilowday waqti hore in cid walba ay dadaal fiican samaysay cid walbana ay ku tala gashay meeshii karantiilka la geey lahaa meeshii isolationka la geey lahaa dadka sida loo kala triyaajka loo kala saari lahaa dadka cudurrada kala qaba sidii looga fakari lahaa waliba dadka waayeelka daryeel gaala loo sii lahaa hadda dadaalkaasa la iska rabaa maanta meeshaan hadda maantay muqdisho ah isbitaalkii martiini heer saru gaaray heerka saru gaaray waxay noqotay in ay joogaan dhakhaatiir isdaba jooga daryeelku yahay continuous uu socdo 24 saac in isbitaalkii utilizationkiisu hadda lagu dadaalay in aad loo sii badsho ICU-diisa iyo wax qalabkii yaalay oo dhan la wada adeegsado aqoonta iyo khibradiina ay badatay saacadaan oo idin la hadlayo waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo dhammaan gobolada waxaan ugu bishaareynayaa in takhaatiirta joogta goboladaas ay group ka mid ay hadda duruus ka qaadanayaan professor Talyaaniga oo ah kuwii dhufayska koowaad ku jira Talyaaniga waqti waa lagu baabay dadkii daryeelka badan sameynayay toosa wala qaybsanayaan asagoo jooga ama goboladiisa asagoo jooga ayay la qaybsanayaan arrinkaas marka waa arrin waxay noqonaysaa faa'iido ah oo dhakhaatiirtu waa tababarayeen ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed asna si online ayuu takhaatiirta badan ee gobolada joogta uu tababaray hadda dadkaas oo dhan kaadiriin tababaradana idin jooga laga faa'iideysto oo hal hawl geliyo oo isbitaalaadka iyo goobaha loo cayimayo in cudurka lagu dawo inay noqoto isbitaalaadka inay noqoto waa isbitaalaadka meel laga siiyo si hadhow hantida meeshaas gasha iyo dadaalka gala ay ugu haraan gobolka ugu haraan haddii meelo kale la geeyo hadhow arrinkaasi sida aan rabnay maahan waa naga khaldamaya waxaan rabnaa in cudurkaani waa yimid waa jira waa nagu dhex jira inaan laba arrimood uga faa'iideysano muhiim ah labada arrimood arrinta koowaad waxa weeye inaan nidaamkeena caafimaadka aan kor u qaadno oo maantay tababaradii iyo shaqaalihii iyo qalabkii gobol walba ama caasimadiisa ama degmooyinkiisa ay wax ka gaaraan weeye oo systemka caafimaadka kor u kaco qodobka labaad waxa weeye in laga helo waayo aragnimo kuwa hadda naga horeeya oo dawladdu hore u galay waayo aragnimo ka abuurteen annaguna waayo aragnimada inaan abuurano way si marka jiilalka waqtiyada soo socda waxaan kala haday dhacaan aan u diyaarsanahay oo aan mar alleeya markay dhacaanba aan hole systemka ka howlgelin karno haddii saasi dhicin hadda shir wax noqonaysaa jugjugo meeshaada joog waa fatahaada soo laalaabanayso kale oo sanad walba soo dhacaysa ama daadka socda oo sanad walba dadkii shalay ugu haleelay maanta masalaha leelahay hadda arrinkaas waa inaan ka baxno waa inaanu caqliga adeegsano waa inaanu xoogeena midayno waa inaanu dhammaanteen gacanta isku qabsano si cudurkaan aan hakil lahayn oo u joojin lahayn dad badanna aysan nooga dhiman ayaan rajaynaynaa marna waxaa bilaaban doona baaritaano xoog laha bilaabmi doona dadku inay diyaar u noqdaan weeye oo qolo walba ay meesheeda diyaarsato oo xataa qalabyada inkastoo naga maqan laakiin qalabyo fiican inay noo soo socdaan ayaa rajaynaya maaha inaan rajo been idinku rajo gelinayo rajona ruuxaan idinku rajo gelinaya marka martiin maanta bilownaba iyo hadda maanta ciriyo dhul kale yahay waxaan rajaynaynaa kuwa goboladuna inay saas oo kala noqdaan laakiin waa markii la isku duuban yahay waa markii si wadajir ah looga shaqeynayo in cudurka la xakameeyo waa markii wacyigelintu ay si fiican u hirgelayso waa markii dhalinyaradu ay qaataan mas'uuliyadooda ah inay hormuud ka noqdaan wacyigelinta inay dadka ayagu waaniyaan inay ayagu iswaaniyaan inay ayagu isbadbaadshaan dadka kalena badbaadshaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan shirkan jaraa'id isugu nimid oo daba socda shir jaraa'id oo 15 casho ka hor aan ku qabanay magaalada Muqdisho 3 bishii May kaasoo aan ku dalbanaynay in xaaladda warbaahinta Soomaaliya ee ciriiriga gashay wax laga bedelo ilaa iyo waqtigan aan idin hadlayno 15 maalmood waana aamusnayn waxaan sugaynay in isbedel uu yimaado
laakiin haba yaraatee wax isbeddelay ma jiraan tusaale ahaan waxaa xirnaa wariye maxamed cabdiwahaab abuuja oo la xiray muddo 70 cisho ka hor maalintaas way dhaweyd ka horna waa ka hadalnay laakiin waxaa nasiib darro ah ilaa iyo waqtigan maanta aan hadlayno in abuuja uusan helin wax sharci ah wax cadaalada uusan helin marka laga reebo warqad yar oo 2 baaragraaf ku qoran tahay wasaaradda warfaafinta ay soo saartay oo la leeyahay ninkan waxaan ku eedaynaynaa shabaab ninkan waa la yaqaanaa wariye u ahaa idaacado kala duwan oo ka shaqaynayay ilaa hadda cid dambi ku soo oogtay ma laha marka waxaan la yaabanahay sababta sharciga loo baalmaraayo madaxweynaha isla maalintaas aan hadlaynay wuxuu soo saaray xeer oo maaragtay aan iraahdo wuxuu aad twitterkiisa ku qoray inaan loo isticmaali doonin laga shaqayn doono in dib loo habeeyo inaan wariyaasha maaragtay aan loo isticmaalin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waa ku mahadsan yahay hadduu intaas gartay laakiin maxaaba gaarayo xeerka ciqaabta qofkii hadiiba la haysto 70 cisho oo aan wax maxkamada la keenin waxa lagu xukumi doono maxay taraysaa sharciga lagu tuntay dastuurkiga lagu tumanaya marka waxaan meesha u taaganahay waxa waaye oo aan wadi doonaa maalinna aan joojin doonin in qof inta uu sharci darro ku xiran yahay inaan aamusno annaga dawlad shaqo kuma lihin siyaasiyiin ma nihin laakiin waxaan diiradda saaraynaa xurriyadaas qofkaas wariyaha ah oo inuu cadaalad hela cadaalad kuma hayna meesha waxaan codsanaynaa marka sida ugu dhaqsaha badan waalidiintiisa halkan nala jooga dadkii la shaqaynaya halkan jooga hal maalinna qofna ma arkin 70 ka cisho waa aabihii ma arkin hooyadii ma arkin annagu ma arkin qof arkayna ma jiro waxaan rabnaa in fursad naloo siiyo inaan aragno xataa waxa shaki naga jira maaragtay xaaladiisu sida ay tahay xaq uu leeyahay maaragtay waxaan aaminsanahay in waxa lagu haysto ay shaqadiisa tahay haddii aan shaqadiisa lagu haysan oo dambi galay dambiga waa la keeni lahaa laakiin ilaa hadda wax dambiga oo la keenay haba yaraatee ma jiraan waxaa kaloo aad muhiim u ayadana oo aan maaragtay fursaddan uga faa'iidaysanaynaa dawladda Soomaaliland madaxweyne biixi in uu sida ugu dhaqsaha badan u sii daayo wariye Cabdimaalig Coldoon waa la mid intaas uu xiran yahay waxa lagu haystana waa wax isaga uu qoray oo uu sheegay marka xaq ma aha in qof inta la haysto iyadana fursaddan aan ka faa'iidaysanayno waxaan u diraynaa baaq mar kale qoraan ugu hadalnay waa ku celcelinaynaa kamana joojinayna inta qof sharci darro ku xiran yahay waxaan rabnaa xaaladda Soomaaliya ee warbaahintu inay wax iska bedesho sababta hadda walaaca weyn nagu haysa waxay tahay doorasho dalkii uu isu diyaarinaya oo dalkii galaya doorasho marka la isku diyaarinayo haddii xaaladii hadda sidan u cakiran tahay oo qofkii 70 cisho la iska xiranayo wax maxkamada aan la keenaynin sidee wariyaashu uga warrami doonaan doorasho madax bannaan in ay qof walba waqtigiisa siiyaan in ay dadka dhexdhexaad u noqdaan walaac weyn aan qabnaa marka sidaa darteed waa waxaan ugu celcelinayno xaaladda sidan maanta ay tahay in wax laga bedelo waxaan ka codsanaynaa madaxda dawladda Soomaaliya in ay dib u eegaan habdhaqanka ay weli ku wadaan warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan warbaahinta Muqdisho sida hadda halkan laga sheegay qaar badana caga juglayn la kulma qaar badana telefoonada loogu soo hanjaba qaar badana wadankii ka baxsanaya mararka qaarkood waxay ku doodaan waxay leeyihiin annaga idaacad ma weerarin horay idaacada la weerari jiray waa xasuusataan Shabeelle la weerari jiray tan waxa ka daran tan toosan halka idaacad la weerar waxa ka xoog badan tan qalbiga dadka laga weeraraya dagaal adaga lagu hayo warbaahintii waxaan rabnaa in xaaladaas wax laga bedelo waa ku celcelinaynaa waxaan codsanaynaa abuuja inuu sharci helo abuuja in sharciga la hor keeno oo haddii dambi lagu haysto la keeno waa la soo eedeeyey eediisii ma hayno waxaan aaminsannahay in shaqadiisa lagu hayo marka maanta waxaan mar kale ku celinaynaa oo aan marar kalena ku celin doonnaa ilaa iyo inta uu helaayo xurriyad uu maaragtay ama cadaalad uu helaayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle ayaa maanta waxaa ka soo degtay diyaarad sitay deeq daawo ah oo loogu talagalay in lagaga hortago xanuunkan COVID-19 ee safmareenka ah deeqdan ayaa waxaa soo dhibtay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay oo ka warbixiyay deeqdan daawada ee maanta soo gaadhay magaalada Buuhoodle wasiirka kalluumaysiga ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdilaahi Budaanshe iyo waliba sidoo kale xildhibaan
xildhibaan Jingeli oo ka mid ahaa wafdidii la socday diyaaradda. Waxaan maanta soo gaadhnay magaalada Buuhoodle oo ay ka timi qaylo dhalaan khusaysa arrimaha caafimaadka ama xanuunkan safmarka ah oo COVID-19. waxaana soo gaadhay cabasho odayaasha dhaqanka iyo gudiyada magaalada ka jira ay ka cabanayaan dhibaato gaar u ah magaalada Buuhoodle oo dadweyne tiro badan inay isugu yimaadeen kuna taalla meel xuduud ah oo dad badan isu soo galaan. cabashada ka bacdi markii madaxda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ugu horeeyay ay dhageysteen wuxuu ra'iisul wasaaruhu amray in loo raro agab caafimaad intii tamar ah oo laga hortago bal waxyaabaha ka jira deegaankan sida deegaanada kale ee Soomaaliya meelo ka badan loo geeyay. agabkii caafimaadka bilowgiisii baan wadnaa. idinkuma filla waa ognahay baahida meesha ka jirta dhibaatada jirta dadku say isugu yimaadeen meeshan oo dad tiro badan ama dadweyne tiro badan magaalo ah laakiin bal in uun wax la helo reer Buuhoodle inta badan waa ka warhaynaa xamar bay soo eegaan marka bal eegidii xamar bal mar kaliya in laga yara jeesto oo bal aan wax keenno insha Allah waxyaabo badan oo kalena waa ku daba jiraan wax la keeno dareenka dadka shacabka ay soo muujiyeen laga jawaabo dabcan waqti badan ma haysano ama deeqdan daawada aan noogu keenay gobolka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh anigoo ku hadlaya magaca guddiga caafimaadka waxaan jecelahay in aan xog caafimaad deegaanka aan idinla wadaagno hadda ka horna aan saxaafadda idinkala wadaagnay isla markaana aan idinka mahad celinayno sida degdega ah sharafta leh lexjecladu ku jirto ee aad uga soo jawaabteen codsiga iyagii iyo baahiyihii ka taagnaa deegaankan oo guddiga caafimaadku qaylo dhalaanta ay ka soo dirtay. bahda caafimaadka odayaasha dhaqanka oo u mahad celiyay deeqdan daawada ay soo gaarsiisay dawladda federaalka Soomaaliya. gobolkan wuxuu ku yaalaa xuduud waxa ku furan qaadkii waxa ku furan isu socodkii dhammaan deegaamada xogtiisa iyo warkiisa waad haysaan maadaama qorrax la joogo mar raba inaan idinku dheereeyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba halkan baaq labaad uga diraynaa dawladda federaalka inay mar walba si dhow ula socoto xaaladda caafimaad ee deegaanka. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladda federaalka ka sokow xubnaha ka tirsan dawladda federaalka ee wasiirku ugu horeeyo ee xildhibaanadu ka mid yihiin generaalku ka mid yahay oo isu xilqaamay inay maxay ahaaytay haddii alla kuu sama ogol yahay codsigii idinka yimi oo annagoo odayaashii deegaankan ka tirsanay xamar joogay ahayn aanu haddii midkeeda leeyahay u gudbinno u geynay. waxaan dee waad aragtaan reer Buuhoodle waa aragtaan dawladdii baaqii aad dirteen waa idinka soo jawaabtay maasha Allah waxay si walaalnimo ah kalgacaltooye ah bay idinku soo jawaabtay dareenkiinnu inuu dareenkooda yahay bay idin tilmaantay nadaafadda inaan aad loo kordhiyo marka ilaahay cudurka ha naga qaado hala dadaalo wasaaradda caafimaadka guidelinkiisa hala raaco. Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Buuhoodle.